dekeda garacad horta yaa iskale yaa laga rabaa inuu difaaco Horn of Africa oo dhan baa iskale Africa oo dhan baa iskale aqil iyo aran iyo inta u dhaxaysa iskale ninkasto biyaha Soomaali sheegta hadduu ku farxi waayo dekeda garacad waa ina gubeed nafsiyan aqliyan buu yahay ina gubeed haddaba madaxweynihii dekedu lahayd hadduuba ka naxsan yahay uu doonayo inuu dumiyo ina Cumar Geelle maxaan ku haysanaa horay baan u ogeyn in Ismaaciil Cumar Geelle dekeda garacad inay si gaar ah u dhibayso berbera dhibaysa iyo deked kasto oo ay Soomaali leedahay iyo mid geeska Afrika ku taala way dhibaysaa in Ismaaciil Cumar Geelle okay wadaadkan intii dawlad Soomaaliyeed la helayo inuu iska fadhiyaan jeclaa wadaadkan reer Djibouti ceeb inoo soo jiiday Soomaali soo jiiday geeska Afrika u soo jiidaya wadaadkan saynu wa takhalusnaa waan jeclaan lahaa inaan ka takhalusno laakiin intaan dawlad Soomaaliyeed helayo ha iska fadhiyo ayaan markasta nafta u sheegaa dekeda garacad ina Cumar Geelle ogaanay dad badanna way ogaayeen in uunan madaxweyne Xasan Sheekh ku faraxsanayn hadday fashilantay hadday cadaatay hanti dhowrka guud aad iyo aad baan uga mahad celin dhinac aad iyo aad baan uga mahad celin dhinacna waxaa la ii soo diray liis dheer isagii dawladdiisii madaxweynihiisa aan su'aalayno oo shacabka Soomaaliyeed qoraalkan la socda hadalkayga reer Puntland baa saa igu soo harqiyay saaka markuu waagu bariyay khayr Allah siiyo okay waan soo raacin qoraalka la ii soo diray waan soo raacin waxaan leeyahay hanti dhowrka guud aad iyo aad buu mahadsan yahay in waanu aamusnayn shacabka Soomaaliyeed waanu aamusnayn inaadna baraarujisay oo shanqadhay waan kaaga mahad celin Puntlandna xaal iyo xumayn hala siiyaa la leeyahay war maxaa la siin sharaf bay u soo jiideen waxaanu ogaanay Xasan Sheekh inuu Ismaaciil Cumar Geelle u shaqeeyo horay baanu ogeyn aqalku u ogaa aranow ma ogaatay haddaba waxaan leeyahay dekeda garacad xoolihii galay kolka hore waxaan leeyahay geeska Afrika oo dhan dekeda garacad maalgashada Afrikaay Etoobiyaanka Oromka Tigreega Eritrea Kenya iyo qof kasta oo Soomaaliya dekeda waanu aaminaynaa war maalgashada reer Puntland waxaan reer Puntlandis ahayn dekeda concession u sameeyo reer Puntland geeska Afrika waxaan Soomaali ahayn concession u sameeyo dekedu ha noqoto garacad dekedii lagu nastay ma aha Soomaali Afrika ku nastay kolka hore waxaan leeyahay dawladda Puntland iyo shacabka Puntland ilmaada reyaal doqon iyo friid faqiir iyo taajir inta u dhaxaysa dameerley iyo geeley iyo jikinley iyo beerley iyo inta u dhaxaysa dekeda ha maal gashato war noo soo dira sheerka ha maal gashato nin kasta oo Soomaali ah oo meesha maal gasho haddii deked kasta lagu dhaco waxaan dareensanahay meesha aan lagu dhacayn waa dekeda waa meeshii aynu ka soo jeednay asal iyo fasal haddaynu nahay Soomaali odayaasheenni halkaas ay ku aasan yihiin war nin kasto 1 milyan iyo 5 cent sharciga jaamacadda cagaaran 5 milyan oo unlimited lumber iyo 5 cent inta u dhaxaysa share noo soo bandhiga 5 cent waa inaad qabataan oo share ah ninka ku darsanaya dekeda saasaan leeyahay waxaa kaloo leeyahay qof kasta oo Soomaali haddii la kala qaadayo qof kasta oo Puntlandisa ka kale ee gobolada ha ka raqiisanaado wuxuu kala soo degayo reer Hargeysa u raqiisiya reer Muqdisho dekedan ay nuu gumaysteen han ka soo guurre u raqiisiya dekeda ugu raqiisan miskiinka inay caawiso inay maal geliso ha noqoto dekeda haynu maal gashan dekeda haynu wada difaacno shacabka Soomaaliyeed haynu difaacno Afrikaan ka hor intaas waxaan leeyahay Puntland iyo shacabkeeda iyo Soomaali idilkeeda madaxweynaha barakaysan Allah noo barakeeye dhab barakaysan ma socdeen Xasan Sheekh mudane adiga dawladdaada iyo afhayeenkaaga
iyo hanti dhowrkaaga liiskan hantidan guud ee Soomaali lahayd ee kor ku qoran xagee ku dambeysay lacagtii meesha lagu bixiyay xoolaha la dhacay ee Soomaali ka u faqiirsan iyo ku tijaas ka dhaxaysay ee shanta Soomaaliyeed ka dhaxaysay reer Puntland saldhigii ay iibiyeen saldhig bay noo sameeyeen u sameeyeen ciidamadii nahor dhigeen noo cadeeyeen na tuseen naga farxiyeen Allah ka farxiyo wixii dheeraadka ahaana dekadii barakaysnayd biqilka barakaysan bahda barakaysan dekada barakaysan bay noo geliyeen waa buday noo ool oo wax noo soo kordhay waxay noo sheegeen shacabka iyo dawladda Puntland Allah barakeeye way naga wada farxiyeen way naqanciyeen ilaah baa idinka hadliyay hanti dhowrka ilaah baa ka hadliyay mudane Ahmed adiga iyo madaxweynahaaga iyo dawladda Xasan Sheekh ee maanta la shaqeyn iyo tii Xasan Sheekh hore inta xoolo dadweyne idinku maqan liiskani ma aha oo kaliya meeshay ku dambeysay noo sheega okay maalkii Soomaali ka dhaxeeyay wuxuu kooxda maafiyada ah ee corruptionka la wareegtay haddaba Xasan Sheekh miyaynu sugnaa isagoo ilaahay jaanis iyo mar labaad intuu tii hore ceebtii hore iska dhaqi lahaa corruptionka hore dhaqi lahaa inuu xawaaliga sii kordhiyo faraska sii hee faraska tuugnimada faraska corruptionka inuu sii heensaysto okay miyaynu ka sugnaa Soomaaliya wake up hanti dhowruhu ina toosiyay wayna tilmaamay waxbuu inoo sheegay hadduuna u talagelin ilaah baa ka shanqariyay wardaaya wiilka cayne waradeerow wake up wayna yiri okay dawladdan waa inaan la xisaabtanaa tii hore qof Soomaaliya oo inta Xasan Sheekh iyo kooxdiisa tii hore iyo tan lala xisaabtamayo qof Soomaaliya ma istaahil xisaab Puntland oo xagga xalaalka ah inuu ka shanqariyo ataago waa guul inoo soo heti daaya dekada garacna hayno wada ilaashano Xasan Sheekhow hantidii ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysay xagee ku dambeysay liiskan iyo kuwa soo socda meeshii ay ku dambeysay noo sheeg hanti dhowraha Ahmed liiskan intaadan Puntland noo sharaxday Puntland noo sheegtay meeshay lacagtu noogu jirto adiguna noo sheeg xoolahan meesha ku maqan yihiin walaalow noo sheeg السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.